السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawow say academy waxaan soo duubnay ama soo diyaarinay 10 su'aalood oo wada hadalka Englishka ah wuxuu balankeenu ahaa inaan soo diyaarino 1 su'aalood oo jawaabahoogii wata marka 10 ayaan hore u soo diyaarinay maantana waxaan gali doonaa su'aashii 11aad insha Allah bidmillaahi kariim su'aasha 11aad where are you from halkee aad ka timid I am from London baan ka imid su'aasha 12aad how old are you imse jir baa tahay 38 baan ahay when goorma where xagee were you born ayaad ku dhalatay wuxuu yiri I was born waxaan dhashay in 1974 in Liverpool magaalada Liverpool ayaan ku dhashay what do you do maxaad qabataa I am an engineer baan ahay what's your profession waa maxay takhasuskaagu khibradaadu I am an English teacher waxaan ahay macallin dhiga Ingiriisiga dhiga what's your job waa maxay shaqadaadu I am an English teacher waxa weeyaan waa macallin ayaan ahay Ingiriisiga dhiga what's your job waa maxay shaqadaadu I am an English teacher waxaan ahay macallin Englishka dhiga do you work from home guriga ma ka shaqaysaa no maya I work at an office ka shaqeeya no buu dhahay wuxuu yiri no I work waxaan ka shaqeeyaa at an office ka shaqeeya buu yiri where do you live xageed degan tahay xageed ku nooshahayna waa la oran karaa I live in England baan ku noolahay what's your address waa maxay addresskaagu 13 Oxford Street waa 13 Oxford Street waa 13 Oxford Street wadada la yiraahdo Oxford su'aasha ugu dambaysa what's your email address waa maxay email addresskaagu you can email me waxaad iga soo diri kartaa ama iga soo email gareyn kartaa john@gmail.com intaasi casharkii haynoogu joogo insha Allah intaan cashar dambe oo kan lamida aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh midnaha naga ilaawina inaad subscribe-ka nagu deeqdaan sina share gareysaan nabad geliyo Where are you from? I'm from London. How old are you? 38. When and where were you born? I was born in 1974 in Liverpool. What do you do? I'm an engineer. What's your profession? I'm an English teacher. What's your job? I'm an English teacher. Do you work from home? No, I work at an office. Where do you live? I live in England. What's your address? 13 Oxford Street. What's your email address? You can email me at john@gmail.com.